habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhimatay daad hor leh oo ka dhacay California iyadoo dhoobo soo rogantayna ay xaaqday dhul u dhow Los Angeles malaayiin reer Kenya ah oo si weyn ugu tiirsan cuntada burka galeyda laga sameeyo ayaa mustaqbal adag wajahaya maadaama uu qiimaha sare u kacayo isbedel xagga tamarta ah ayaa Afrika ka socda iyadoo qalabka quwadda korontadana ay gaarayaan kuwaasi oo wax ka bedelaya nolosha malaayiin kooxaha badbaadada ee California ayaa baadigoobaya cid ka badbaaday daad xoogan iyo dhoobo soo rogantay oo xaaqday Santa Barbara oo Los Angeles u dhow ugu yaraan 13 ruux ayaa la og yahay inay ku dhinteen roobka lixaad ka leh ee watay biyo iyo dhiiqo badan iyaga oo burburiyay guryo badan Cabdiraxmaan Bidaan ayaana ka waramaya roob gudgud ah ayaa waa berigii wax yar ka hor halkaasi biyo dhigay roobkaasi waxa uu ahaa roob mahiigaan ah oo dadka cabsi galiyay waxaana daadkii ka soo rogmaday uu soo jiiday halkaasi iyada oo uu soo qaaday dhiiqo culus oo aad moodo inay xawli tareen ku socoto waqti adag ayaynu ku jirnaa oo aan ku qiimayno goobahaasi uguna jawaabno meelo badan oo ka mid ah si aan dadka u caawinno waxaa keliya oo aan ku tilmaami karaa inay u eg tahay meel uu ka dhacay dagaalkii koowaad ee adduunka daadka dhiiqada ee halkaasi ka soo rogmaday ayaa waxa uu ka mid noqonayaa masiibooyinka xagga dabeecadda ah ee sanadadan ku dhacayay dalka Mareykanka kuwaas oo lagu qiyaasay inay geysteen burbur dhaqaale oo gaadhaya 300 bilyan oo dollar waxaana ay keentay in daadkaasi iyo dhiiqadaasi iswata ay jiidhaan guryihii ku yaallay halkaasi oo iyagu imika mar dhoweydun ka badbaaday iyadana dab weyn oo California ka kacay dhowaan iyadoo xaaladdu halis tahay ayaa haddana diyaaradaha qumaatiga u kacay waxa ay galeen hawada gurigaygii daad ayaa qaaday wax walba daad ayaa qaaday waxaanan fiirinay dariska guryahoodii bal sida xaalkoodu yahay waxaanan maqalnay ilmo yar oo ooyaya dhiiqadii ayaan qodnay ilmihii ayaannu helnay ma ogin meel uu ilmahaasi ka yimid xitaa afkiisa dhoobo ayaa ka buuxday waxaad maqlaysaa sheekooyin cajiiba oo ka hadlaya sida dadku halkaasi uga badbaadeen degmooyinka aad dhibaatadu ugu dhacday doorkan ayaa waxay yihiin Montecito iyo Carpinteria oo ku yaalla badda Pacifiga ee waqooyiga Los Angeles waxaana yihiin xaafadaha ugu qaalisan dalka Mareykanka oo ay ku nool yihiin xidigyo badan oo Mareykan sida Oprah Winfrey gabadha la yiraahdo burburka iyo baabu haddaba xeebta California un muu hayne waxa kaloo ay dhibaatadu soo gaadhay duleedka Los Angeles xaafadda ku taala ee la yiraahdo Burbank kooxaha gurmadka ayaa weli isku dayaya bal inay badbaadiyaan dadka qiimaha cuntooyinka aasaasiga oo noqon kara arrin siyaasadeed ayaa dadka Kenya waxa ku qaaliyoobay qiimaha burka galeyda oo laga sameeyo cuntada wadanka ugu muhiimsan ee ugaaliga la yiraahdo kabisa ay dawladda ku sameeynaysa burka ayaa istaagtay toddobaad ka hor beeraleyda ayaa lagu eedeeyay inay kaydsanayaan iyagoo filaya in qiimaha uu sare uga kaco Axmed Xaaji ayaana ka waramaya makiinad wax shiida ayaa ka shanqarayso Kajiado oo duleedka Nairobi ah waxayna daadinaysaa galey daqiiq noqotay shaqaale ayaa guraya budada ugaarida ama soorta oo Kenya aad looga jecel yahay Usmaan Xamuud oo ah milkiilaha ganacsigan wuxuu sheegayaa in xaaladda aysan u fududayn sida la moodo isaga iyo milkiilayaasha kale waxa ay galey taageero ah ka heli jireen dawladda si loo shiido loona yareeyo qiimaha ugaarida ee Kenya laakiin taasi way istaagtay markii dawladda ay hakisay barnaamijka kabida shirkadaha hadda hal ama laba isbuuc ayaa laga joogaa markii ay naga dhammaatay taageerada kor ayayna u kacaysaa xilliga uu dalagga noo soo go'ayo waa Julaay haddana waxaa la joogaa January marka ma garan karno waxa dhacaya Abriil ama May mashruuca oo la sameeyay May 2017 waxaa lagu taageerayay shacabka oo qiimaha uu qaali ku noqday gaar ahaan ugaalida tallaabadaasi waxay sababtay in qiimaha budada galeyda la yareeyo 50% saamaynta joojinta taageerada ayaa ilaa iyo hadda laga dareemay meelo kala duwan Peter Cholo waxa uu cunto ku iibiyaa Kajiado wuxuuna sheegayaa in qasaaraha uu dareemayo oona sabab ay u tahay joojinta mashruuca weli intii hore ayaan ku iibinaa qiimaha soorta
qiimahana sare ayuu u kacay. The customers may disappear or they start complaining. So haddii aan qaaliyeyno macaamiisha way cabanayaan waana weyn karnaa. kind our losses simply because we have no other choices. qaybo badan oo Kenya ka mid ah abaar ayaa ku dhufatay sanadkii tagay taasina waxa ay dhaawacday dalagga. It's the same portion we are given. That gives us a loss. waxaana sare u kacay qiimaha ugaalida ama soorta tanna waxa ay galeyda ka dhigi doontaa mid aad u yar. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adiga oo ka gelaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. waxaa maanta Hargeysa soo gaaray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating waxa uu la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi. kulankooda ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee dhaxmaray ilaa iyo markii la doortay waxa ayna ka wada hadleen sidii qaramada midoobay ay uga caawin lahayd Somaliland arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, caafimaadka iyo siyaasadda. xogayaha guud ee ururka talada Koonfur Afrika haya ee ANC ayaa sheegay in guddiga fulinta ururka aysan ka hadli doonin in xilka laga qaado madaxweyne Jacob Zuma. AC Mashaguli ayaa sheegay in arrintaasi aysan ahayn mid laga doodo. waxaa la isla dhexmariyay in mucaaradka ay Zuma ka keenayaan codka kalsoonida inta uu kulankoodu socdo. Itoobiya ayaa mamnuucday shisheeyaha carruurta qaadanaya iyagoo sabab uga dhigay in carruurta ay la kulmaan dayac ama dhibaato. qaynunkan cusub ayaa dhigaya in agoonta iyo carruurta kaleba ay qaataan dadka deegaanka. Itoobiya ayaa ahayd meel ay shisheeyaha ka soo qaataan carruurta waxaana dadkii carruurta halkaasi ka soo qaatay ka mid ahaa xidigaha Hollywood Brad Pitt iyo Angelina Jolie. kuwa dhalilana waxa ay sheegayaan in Itoobiya aysan haysan adeegyo ku filan oo wax loogu qabto carruurtaasi. marka baaris uu Mareykanku leeyahay ayaa la filayaa inuu ka bilaabo badweynta India baadigoobka haraaga diyaaradda Malaysia ee MH370. diyaaradda ayaa la waayay ku dhawaad 4 sano ka hor waxaana saarnaa 239 ruux. baaris rasmi ah oo socotay ayaa la joojiyay sanadkii hore. shirkadda markabkana waxa ay sheegtay in dhul ballaaran ay si dhaqsi ah ku baari doonto iyagoo adeegsanaya maraakiib yaryar oo quusta oo aan dad saarnayn. waddanka Venezuela halka ugu sarreeya ayuu kaga jiraa tirada waa Latin America tirada dhowr iyo 10 jirada uurka qaada. mid ka mid ah 4 haween ah ee wax dhalana waa dhowr iyo 10 jir. waxa uu xaalku sii xumeeyay iyadoo ay adag tahay in ay helaan waxyaabaha uurka la isaga ilaaliyo. Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa. farmashiyaha Margaret maalmahan waxa uu u muuqdaa mid maran. muddo 1 sano ah looma keenin dawooyinka looga hortago uurka. maalin walba dad raba ayaa yimaada oo haddana ku hungooba waa in ay la qabsadaan. Actualmente antes compraban más los preservativos los hombres. waxa ay leedahay markii hore injirka ragga un baa gadan jiray balse hadda haweenka xitaa way gataan sababtoo ah ma jiraan waxyaabo kale qiimaha injirkana 200% ayuu kordhay. Danlays ayay ka muuqataa raadkii dawo la'aanta ayada oo da'yar ayay hooyo noqotay haddana waxa ay wadaa ilmaheedii saddexaad oo aysan ku talagelin sababtana waa dawo la'aanta. Bueno, mi reacción fue naguara. waxa ay leedahay markii ugu horeysay waan ooyay balse hadda in aad hesho dawo looga hortago uurka waa ay adag tahay maba jiraan haddiise aad hesho waa qaali. hadda waxaan qorsheynayaa in aan dhashaba iska joojiyo sababtoo ah ma qaadan karo fikirka ah in aan cunug kala dhalo. wiilasheeda waaweyn marmarka qaar uma iibiso dhar iyo kaba cusub oo waxa ay la daalaa dhacaysaa qarashaadka caafimaadkooda. marka sicirka cuntada ay sarreyso qiimaha dawada ka hortaga uurkana ay laba jibaar ka badan tahay mushaarka bishii waa in laga tanaasulaa waxyaabaha qaar. Dr. Orbina waxa uu sheegayaa in haweenka uu ka dhaliyo badankood aysan ugu talagelin in ay dhalaan. The government instead of dowladda bedelkii ay dadka siin lahayd waxbarashada dhanka gogosha dawada dhalmada looga hortago iyo cinjirka waxa ay ballan qaadaysaa haddii aad xaamil noqotid inay guri iyo lacag ay ku siinayso balse taasi dabcan waa sanadka ugu horeeya un iyo mararka qaar oo ay cunto ku siinayaan.
sanadkii hore ayay badsimaar 15 jirsatay waxaa loo dhigay xaflad dhalasho oo loogu muujinayo inay dumarnimadeedii buuxsantay 2 bilood gudahoodna waxa ay leedahay ballan muhiim ah waana dhalashada gabadheeda Joseeni waa ay faraxsan tahay balse waxa ay ka walwalsan tahay mustaqbalka waxa ay leedahay markaan dhala kadib aad ayaan u cabsoonayaa sababtoo ah aad ayay u adag tahay in aad hesho dawada ka hortagga uurka iyo cinjirkaba waa wax dhab ah in haween iyo gabdho badan ay halkan ku haysato xulashada go'aanka gaaridda in mustaqbalkooda la hareer mariyo iyada oo xilligan inta badan ay u arkaan in mustaqbalka uusan ifaynin markana cayaaraha Manchester City ayaa lugtii ugu horeysay 2-1 kaga adkaatay Bristol City ciyaaraha EFL-ka kuwa caawa ciyaarayana waxay u dhaxeeyaan naadiyaasha London Chelsea iyo Arsenal ciyaarta dhaxmaraysa ayaana kamid ah kuwa u adag Arsenal waxa ay wax kooba ma helin muddo 25 sano ah halka Chelsea 2015 ay heshay koobkii ugu dambeeyay naadiga weyn ee reer Angola Sagrada Esperança ayaa ku dhawaaqay in uu geeriyooday ciyaartooygoodii Nataku Zebakaka xilli uu tababaranayay magaalada Benguela 23 jirkan ayaa u dhashay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo isaga oo tababaranaya ayuuna xanuunsaday kadibna waxaa loola cararay isbitaalka uu ku geeriyooday qaaradda Afrika ee qoraxda kulul leh ayaa iminka ka faa'iideysanaysa in tamarta laga dhaliyo koronto taasi oo Afrika baahi ballaaran u qabto Afrika inteeda badan waa mugdi oo ma laha awood dhaqaale haddaba waxaynu eegaynaa caawa Zambia oo korontada laga dhalinayo qoraxda Ahmed Xaaji ayaana ka waramaya waa Zambia wado ay biyo ku fataheen Afrikadii hore iyo Afrikada mustaqbalka waa buundo hore oo duntay waana calaamadaha wali dib u dhigaya horumarka qaaradda halkaasna waxa madaxa Judith Stawala saaranna waa mustaqbalka waxay iibisaa solarka korontada macaamiil cusub ayayna hadda ku sii socotaa waxay la shaqaysaa shirkad samaysa qalabkan miyiga halkan iyo Afrika oo dhan ma lahan qof saqafka kora dhaqaalaha iyo masaafada aad bay u adag yihiin laakiin maanta soolaro yaryar ayaa nolosha beddelaya waxayna badbaadinayaan qoysaska saboolka ah ee haysta bateriyo yaryar gudaha box laga buuxiyey software oo shirkadda ay wax ka faa'iidayso wuxuu soo saaraa lacagta bil kasta sanadka iyo barka ugu horeeya way fiican tahay sababtoo ah maba ogin xilliga ay koronto heli doonaan laakiin haddii dad ay tiknoolajiyadan keenayaan bulshada way u fiican tahay haddaba qaaraddan qoraxda kulul dadka saboolka waxay helayaan tiknoolajiyad wax ka beddeli karta dhaqaalahooda dhaqaale ahaan macno ayay leedahay dakhli ahaan waa wax wanaagsan waxaana aaminsanahay in 10 sano gudahood wax badan isbeddelayaan korontada miyiga dhab ayay ka noqon doontaa dalkan waatan ficil ahaan solarkan cusub maalinta oo dhan kor ayuu saarnaanayaa haddana guri yar oo mugdi ah oo ku dhex yaalla beer ayaa la dhex dhigay waa tijaabada ugu horeysa ee korontadan nalka guryaha nalka horumarka iyadoo qaaradda ay doonayso inay mustaqbal wanaagsan gaarto markana amiirka waddankan UK Amiir Harry iyo gacalisadiisa Meghan Markle ayaa shalay tagay xaafadda la yiraahdo Brixton ee koonfurta magaalada London ku taala haddaba amiirka oo booqday xarunta raadiyaha la yiraahdo Representer ayaa halkaasi lagu baray salaan casri ah amiirka oo ku faraxsanaa salaantaasi oo dhowr hab oo adag loo samaynayo ayay gacalisadiisa waa gabadha u doonan ku qosashay maadaama uu dhowr jeer ku celceliyay wasalaan adag wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna inta aan mar kale kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo asxaabta kaleba sidaas iyo nabad galyo